بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi subxaanahu wa tacaala walaalada diyaariya kulankan iyo markaska reer abu hurayra maamul iyo shacabkiiba. marka labaad, haddii aan deriskan bilaabo, deriska lay dhiibay waxaa la yidhahaa miftaax asacaada azawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. asal waxaa islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. laakiin waxaan isku dayaynaa bal bacd alashyaa inaan tilmaamno. waxaynu tilmaami karnaa ziwaajku ama guurku waa sharika bayna zawjayn, ama waa nolol ay wadaagayaan laba qof oo markii hore ajanabi kala ahaa, dabeetana isaga raalli noqday inay nolosha isku darsadaan. waxay yidhaahdaan shirkadaasi waxaa asal u ah ra'samaalkeeda koowaad bay yidhahdaan huwa alxub. shirkadaasi ra'samaalka keliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fi suurati alacraaf, huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. ama fi suurati aruum, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى، إلهي آيات كيس ووين اللغوغرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن ورقة ama aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu u yeelay lamaane. lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa layidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. asalka guriga markaa waxaa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. ilaahina wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiinnana waxa alla yeelay subxaanahu wa tacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. kalgacal iyo naxariis. waxaynu markaa isku dayaynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya.
إلى حد إلهي كنت المامية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هبا أتهين إذنكو هوين كان قبطان هوين إدادنا هبا يكوتين دركو قفك بني آدم كاي صدح شيء بوقعته أولا وحوقعته عاديات الحياة نسكي عليه كليل قبو واحد شراء نسكي قربه ثانيا وحوقعته لستر عورتي سينو كو أسطرته ثالثا وحوقعته للزينة وللتزين إنه إسقرحيه ninka iyo gabadhu intaba way isu yihiin saddexda shayba ninka iyo gabadhu way isu yihiin waa meel uu qofku hadduu nin iyo hadduu gabadh yahayba uu ku dego ku xasilo waa meel uu cawradiisa iyo sirtiisa iyo waxa u qarsoon oo dhan uu ku kaydsado oo uu dhigto waa meel uu quruxdiisa ku muujiyo idan qofku wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii hayaa saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin dhar inay isu yihiin gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay ama in lagu xasilayo ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taallo ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara waxaynu leenahay dhowr shay baa jira dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo kalgacalkuna waa wax la beero sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii tusbix fiiha sacaadatu shaksin aakhar daruuriyatan lak xaalad bay leeyihin qof kale liibaantii adiga ay daruuri kuu noqoto aad ku faraxdo qofkan aad kalgacalka u hayso ee jeceshahay waxaad la jeceshahay wanaag oo dhan waa xaala aad qof kale rabto liibaantiisu adiga ay ku farax gelinayso waxaan rabaa markaa laba dhan inaan ka sawiro dhan inaan ka sawiro ninka dhan kale inaan ka sawiro gabadha marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhexeeya inta badan dadku marka jacayl iyo kalgacal iyo muxibbo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-addiisa nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin waayo ilaahayba qur-aanka markuu inoo manno sheeganayo ee la sheegay xoolo in layna siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa la yidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqanka ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaali lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadigee sare ee muuqda waxyaabaha ugu horreeya ee lumaabuu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da'baa iska socota saa daraaddeed waa tarahulaat waa muuqaalkii hore isbeddel baa markiiba ku yimaada
laakiin waxa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahay waxa weeye ka asala jamaal alafcaal sida awgeed reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhaahdeen aanu damin si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhay caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa inta mar laysu dhigo la dhergo saa la ahaado walidaalika waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabaabanaysa ag joogta walidaalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo misaalan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda ghariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo laakiin waxa aan tilmaamayo o dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaabi illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsana kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo مثلا النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا حديث صحيحة هديات كيساسية أو حيث هدية واسجعلها نيسان يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحي أرها بيره دتكو إن الرالي اسكن نغضان وحريد في عن وكالقعل ونحمره وحكم إذا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كيالي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا سنادي قال لي ما يسامبوا النبي يقول لا يا إيمان لا يدنك هل موياني إيمان لا يدنك هل ما لا يا محي أسجعلاتان موياني هذا النبي يقول حتى المامي كالقعل كاسي مسلمين تدحدوا دقليا سيدوا أكري لها أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما يدن تصيابوا النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه أعمال يا أفعال هذا سميسان أسجعلانيسان وحو النبي يقول لي أفشوا السلام بينكم سلامت بديع سلامت وكلامك طيب كي هلكو كبل عمه قفك ولالك أي مركز وهربها السلام عليكم من الكتر هذا وهذا الدعاء نيسا قفك انتو كوي السلام عليكم معناه يدو حويا ربي هكو دوره قفك انتو كاسو هربحي كوغو بلابا يا هذا إلهي بان كبر يا إيروكو إلاليو وقفك القعلو كووضو hadduu kugu celceliyo markaas si kasta aad u caraysnayd hadduu imka assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow markaas ka soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo laba saddex jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa wacalaykum assalaam baad leedahay yani waa qof muslim oo markuu ka soo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabbu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka inuu xubbigu wax la beeri kara yahay dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay bal quraanka ilaahay wuxuu leeyahay idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa kaannahu waliyyun hamim ba ilaahay marka xuma lagu sameeyo wana kaga jawaab ba ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maxaa dhacaya fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ki colaadu idin dhaxaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahay kaannahu waliyyun hamim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya qofkii dhibta kuu geystay ee ka filayay inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aadna على الأقل فإن عاقبتم بمثل إنه سجيي أنتي وكوجيستي إلا على الأقل إن أدو جيسته هداد وليبا وناقو قشه وهيك إنسان يسقفك أكتس إن الدبلغ قصة هذا القادم دائر يسقوح كوير هذا ويرا ورنك سأبال بيقول إيه بران وحي وحكو سمايو هدنا وناقاسو إيقالي
سدرادين محن مسائل كانوا تلمامية وحويان حبك فطرك يا هوري والله يا با إنن إنن كستو إسكور سنة يا مركي إسكور سين إن كالقع الفطري نحمر وصورة قال لكن إنو كاسي شوكتا هذا وقريغان السعيل كاسي وكون نولاده وهدي دادكو قبوبان أو لقبوبو أو سيدي شعيل كوشوغا وحوبا هي أفعال يدقن أبوريا إنو كالقع الكاسي شوغا وطها مسألة دوباهان مركاسي إن وحليسك ويديو ولا تلمامو وطها مسألة أن اسكو دايا مركا وحي الله كفو ضيديو سبحانه وتعالى إنا صور نقليا مسيسيو قوريو إذن كالقع الكقويسكي يقوريو ومطلب أما وأرن أباهن صناعة مشتركة بين الزوجين والشيء أباهن نينك إيا قبردو بإنا وضبيران وحان اسكو دايا مركا كلمات الحب والعاطفة الجياشة أي كم وغطه إن انكسر النقلية من كلام علماء سلف قرى إن انكسر النقلية علماء دي هراء مسلمين تا إيا وحيابا يساتن كيداهدين أولا وهي علماء دو يدادان كالقعلكو كو آنين إيا قبردو خلقادو قبردو هوينيدو إني نكيدا شعلاته وشعيل دبا شعلاته ومن الدين وانا الصفة ننكونا وشعليه دو قبردي سكالقعل كو هايستو إيا شعيل وكدريميو ووحو ننكو شعليه تا waxa u daliila ilaahay quraanka markuu sifeynayay dumarka jannada jooga oo ay kamid yihiin dumarkii mu'minaadka ahaa ee dunida iimaan ku dhintay ahlu jannah noqda kamida dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeynayay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sifeeyay inay yihiin kuwa ragooda jecel inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran 'uruban أترابا بإلهي وحويا بإلهي عربا هوينك جنادو كبرد مسلمات دي إن أهل الجنة لدقا النقطة وهو حدين تكو يارس أنا أهل الجنة ودقا فيعا جنة وحيا الله ودقا ونكسن سدرادت كبرد مسلمات دي دوني دي شوكتانا إن دقا كانوا كلايا لتا وشيء مطلوب له بهاي ولولا هدي آنو أهين ننكو متكفر حيا إني هوانتيسو جعشي هدانو أهين إلهي وقمش يغن نمعادا وجنة كوهلا يينيت يعني ميا لوران لها جنة النمعوين كادن ميا هولي سوى حكمدا لولا أنا أهين من فطرتي إنو كفر حيا كبرارا يو كوكلا بدنا يو هدي هوانتيسا كم مغطر دقن أما هذل أما صعد أما موقال أما وح سوتي تو موتشينا ييني جعشي هدي كم مغطو سيدا وجد فالكتب التفسير عن تلمامو كلمة عربا أو عربا لبدا قراءة كادون تباخري واسكمي ده وحين هذا المفسرين تشن قول بيكلي ينبولي ابن القيم في زاد المسير كيسة قولك كوادا علماء كفسرين وحكمي ده العرب وحويا بولي أنهن المتحببات إلى أزواجهن وسيدا وعوفي بن عباس كورينيو وأنا قولك ومجاهد لقصر نقلينيو سعيد بن جبير ابن قطيبة إمام الزجاج علماء دا صورنا بيكو تكتي وحولي هي عروبا تهوينك الجنة اللي وحويا أنهن المتحببات إلى أزواجهن وشرح دون وقوة استعليسينية رقودة قولك اللبات وحو أورانا يا عربك يكو فصيرينا أنهن العواشق وقوة إيجا عشق وهيبا كيه رمحولها وقوة استعليسينية من كده كان وحولي يضا لفتيده أي عشق وهيا وانا سيدة ابن عباس علي بن أبي طلحة وكورينيه وانا قولك وكنت لي حسن يا قتادة يا مقاتل يا مبرد هي مجاهد لفتي سو قول بعد ولي قولك صدح هذا عربا وحي كنت المامان الحسنة التبعل وقبرد الصدف في عنه لردق أنت نين كيده اسنا أبو صالح يا ابن عباس كورينيه ابن عباس صدح قول بولا كورينيه مكة وانا قولك كنت يا أبو عبيدة قولك أفراد مسألة ترى كنت المامان وحويان وعكرمة لقوريه الغنيجات
الغنج غنجة جارية غنجة مركا ليلها غنجكو وتكسر وتدلل ويسشبين waxay yidhahdaan waa wax ka mida wasaa'ilka xubbiga si kale marka loo tilmaamo ibnu zayd qowlkiisa ugu dambeeya wuxuu leeyahay alxasanat alkalaam axad almufasiriin maalan haddaan aqwaashiisa soo guuriyo ibnu cashuur fii tafsiirih wuxuu odhanayaa curub waa jamcu caruub bifatxi alcayn wayuqaalu cariba bifatxin fakasr فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوح لي وكلمة دمر كوكارة ولغو السفاية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بوري لكن وحان شيغي يا بوري وحكل مية هوين كان جنة صفة لغو شيغي عروب قبضنا لغو صفين معنى هذي وحويان بوري المرأة المتحببة إلى الرجل وقبضنا من كيدا استعلي سينيسا أو التي لها كيفية المتحببة بوري أما وقبضنا dhaqan keedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wain lam taqsid التaxabub buu leeyahy oo muxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy bian tuksir الضaxk bimar'a الrajul aw الmizaax aw الlahw aw الkhuduuc fi الqowl aw الlathq fi الkalaam biduni cila aw التغزل في الرجل والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه waxaa ku fasiraya sheekha uu leeyay carruubka waxaa la yidhaahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kane jeclaado ha noqoto buu leeyay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadalkoo la jejebiyo ama wax tagasul tilmaamaya yacni wuxuu tilmaamayaa un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yidhi waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraantatay quraanku uu diiday yani mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajnabiga inay hadalka jejebiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaas oo dhan waa xaaraan quraankuna si cad ay nusuustu tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nabigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qoraya waxay yidhahdeen oo marka intaanu shahwadeeda gudana ajar naloo qor oo haddaa la tagtaan buu nabigu yidhi maxay xaaraanta haddaa lagtaan miyaan dembi laydin qoreen walidaalik ay ibnu caashuur wuxuu leeyahay waa sida ilaahay baa leeyahay falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jejebinina oo yuu idin dalbin kii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jejebisaa si uu u dalbo kii xalaasha u ahaa waxay mamnuuc tahay maxay khaarija ziwaaj inay warka kan la timaado ama se ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatina caga ayay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato hadday gurigeeda joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jejebin kartaba ha jejebiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal acmaasha ay tilmaamayaan cikrima wuxuu kaloo ku tilmaamaya alcaruub ay almaliqa buu leeyahy maliqu waa kelmaddan idhaa hebel waa mutamalliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jejebiyo oo qofka isu dhul dhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhahdeen ama markay joogto bay leeyihiin beytka ninka iyo gabadhiisa haweenaydu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahy hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay idhahdaan غالمدنا وهيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل لبضبا صدق إمام البخاري
marka uu tafsiirayo fi xadiid albukhaari fi tafsiir alcariba ay alghanij buu ku tilmaamay walghaniju fi ljaariya waxay dhaha takasurun watadallul waa isjebin iyo isdhuldhig imaam alghazaliyi fi ixyaa'ihi wuxuu leeyahy hiya alcaashiqatu lizawjiha almushtahiyatu lilwaqaac